Midowga Afrika ayaa sheegay in howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ay heli doonaan muddo kordhin ku eg 31 bisha Diseembar ee sanadkan, taasi oo soo afjari doonta walaaca laga qabay amniga Soomaaliya ay doorashooyinka ku soo wajahan yihiin. Go'aanka ayaa la gaaray salaasadii intii lagu guda jiray shirkii 15 xubnood ee Golaha Nabadda iyo Midowga Afrika. Go'aankan ayaa la gaaray salaasadii intii lagu guda jiray shirkii 15 xubnood ee Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika. Warmurtiyeed laga soo saaray kulanka kadib ayaa lagu sheegay in la isku raacay heshiis guud oo lagu kordhinayo waqtiga howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. Golaha Amniga Midowga Afrika ayaana isku raacay in waqtiga loo kordhiyo AMISOM ilaa 31 bisha Diseembar ee sanadkani 2021. Go'aankan ayaa hadda ay xubnaha Golaha Amniga ee Midowga Afrika ay u gudbin doonaan Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay oo siiya amarka rasmiga AMISOM si ay cod ugu qaadaan dabayaaqada bishan. AMISOM ayaa Soomaaliya ku sugnay tan iyo 2017 waxa aasaasay Midowga Afrika si garab loo siiyo dowladda federaalka ahayd ee curdinka. Tan iyo xilligaasi waajibaadkooda ayaa la kordhinayay sanad kasta sababo la xiriira dhibaatooyinka amni ee ka imanaya kooxda Al-Shabaab iyo qalalaasaha sii kordhayay ee Soomaaliya. Sanadkani Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay qorshahooda waxa uu ahaa in ciidamada ka shaqeeya AMISOM ay bilaabaan inay si tartiib uga baxaan gudaha Soomaaliya marka la gaadho Diseembarna ay guud ahaanba ka baxaan ciidamada AMISOM marka laga reebo shaqaale farsamo oo kooban. Si kasta ha noqotee ka bixitaanka Midowga Afrika ee gudaha Soomaaliya ayaan suuragelin kadib markii shakhsiyaadka siyaasadda Soomaaliya ay ku heshiin waayeen jadwalka siyaasadeed ee ah in la qabto doorashooyin waqtigoodii ku dhaca, taasi oo ahayd 8 bishii February. Bishii Maarch ee sanadkan ayay ahayd markii AMISOM loo kordhiyay muddo xileedkoodii hore oo ku ekaa bishan May aynu ku jirno. Xamaas waxa ay sheegtay inay gantaal ku garaacday Tel Aviv iyo hareeraheega si ay uga jawaabto bartilmaameedka cadowga. Muuqaal laga soo duubay magaalada ayaa muujinaya gantaal la sabaynaya hawada habeennimadii iyo qaar soo qarxaya maadaama ay qaarkood ka hortageen nidaamka difaaca Israel oo sida wararku soo tabanayaan ku fashilmay qabashada gantaalaha kaga imanaya xoogga reer Falastiin. Ilaa hadda la xaqiijiyay waxa dhimashadu gaaraysa 25 qof oo reer Israel ah oo ku dhintay gantaalihii xalay hurdada u diiday maamulka Yuhuudda. Sida uu sheegay sarkaal ka tirsan Israel magaalada Tel Aviv gaar ahaan xaafadda Holaan, waxa uu tilmaamay inay ahayd meelaha argagaxa ugu badan ee uu kaga yimid shacabkooda xaafadaasi, waxaanu carabka ku dhuftay dhimashada haweeney 50 jir halka uu sidoo kale shaaciyay in gaari bas ah uu haleelay mid ka mid ah gantaalaha kaga imanaya marinka Gaza. Magaalada Tel Aviv dadka ku dhaqan badankooda habeenkii xalay waxa uu ahaa habeen baas, dadka yar iyo weyn waxa ay raadsanayeen gabaad iyo goobo ay kaga dhuntaan gantaalaha istaba jooga kaga imanaya dhinaca kooxaha reer Falastiin. Gegada diyaaradaha ee magaaladaasi ayaana hakad la geliyay duulimaadyadii, sidoo kale dhuun shidaalka qaada oo u dhaxaysa magaalooyinka Eilat iyo Ashkelon ayaa waxyeello xoogan ay ka soo gaadhay madaafiicda. Gantaalaha ayaa bilaabmay kadib markii la burburiyay taawarka caanka ee ku yaala magaalada Gaza ee loo yaqaan Hanaadi, kaasi oo uu ku yaala xafiis ay isticmaalaan hoggaanka siyaasadeed ee ururka Xamaas. Saacado badan kadib wali lama sheegin khasaaraha rasmiga ee halkaasi ka dhashay. Waxa lagu soo waramayaa in duqeymaha maamulka Israel ay ka fuliyeen Gaza ay ku dhinteen 35 qof oo reer Falastiin ah. Dhankooda garabka militariga kooxda reer Falastiin Islamic Jihad ayaa Arbacadii sheegay in bartilmaameedyadii Tel Aviv iyo magaalooyinka kale Israel ay ku dhufteen in ka badan 300 oo gantaalo dheeraad ah si looga jawaabo weerarada Israel ay ku hayso degmooyinka rayidka ee Gaza. Waxaan weerar culus ku qaadnay cadowga 5tii subaxnimo ee saaka si aan uga argudano weerarada ka dhanka ah degsimooyinka rayidka iyo dadka rayidka ayay guutada Al-Quds ku tiri bayaan ay soo saareen. Dhanka kale ciidamada Israel ayaa barta Twitter-ka ku sheegay in ka badan 150 gantaal oo laga soo tuuray marinka Gaza la soo geliyay 38 saacadood ugu dambeeyay caasimadda Tel Aviv, iyagoo intaa ku daray in badankooda ay dhexda u xidheen nidaamka difaaca cirka ee Israel. Ra'iisul Wasaaraha maamulka Yuhuudda Benjamin Netanyahu ayaa war u soo saaray waxa uu ku sheegay in kooxda Xamaas iyo reer Falastiin ay ka soo gudbeen khadka cagaaran isla markaana ay shacabkooda difaaci doonaan ciidamada maamulka Yuhuuddu.
tirada dhimashada Falastiiniyiinta ay dileen Israa'iil ciidamadoodu tan iyo markii ay bilaabeen weerarada ay ku hayaan marinka Gaza ayaa gaadhay 35 qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Falastiin. ugu yaraan 220 kale ayaana ku dhaawacmay. 5 Israa'iiliyiin ayaa sidoo kale lagu dilay 45 kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray weeraradii ugu dambeeyay ee saaka subaxii dhacay. xiisadda dagaal ee u dhaxaysa Falastiin iyo Israa'iil ayaa soo cusboonaatay labadii toddobaad ee ugu dambeeyay kadib markii maxkamadda Israa'iil ay amartay in la raro qoysaska Falastiin oo degan xaafadda Sheekh Jarrah ee bariga Qudus. dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa la arkay rabshadihii ugu xumaa ee ka dhaca magaalada Qudus tan iyo sanadkii 2017. arrintan ayaa daba socota cadho ka dhalatay barakicinta qoysaska iyo deegaamaynta Yuhuudda. xiisadda ayaana markii hore cakirnayd kadib bil ka hor markii gacan ka hadal dhex maray dibadbaxayaasha iyo booliiska qaybta ay ku badan yihiin Carabtu ee magaaladaasi Qudus. geesta kale wararka ka imanaya magaalooyinka ay Carabtu degan yihiin ee ku yaala gudaha maamulka Israa'iil ayaa sheegaya in magaalada ku dhacda bartamaha maamulkaasi ee loo yaqaan Loodo ay maamulkaasi ku soo rogeen xaalad degdeg kadib markii dibadbaxyo rabshado wata halkaasi ay ka dhaceen kuwaas oo ay dhigeen Carabta Israa'iiliyiinta xilli ay sii xoogeysanayaan dagaalka u dhaxeeya ciidamada maamulka Yuhuudda iyo sidoo kale dagaalyahanada xoogan ee Falastiiniyiinta. arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay salaasadii in xalinta dagaalada Nagorno-Karabakh ay u ogolaan doonto furitaanka marinka sare ee gobolka iyo awoodda dhaqaale oo xidhnaa muddo sanado badan. isagoo ka hadlayay shirkada uu ku qabtay caasimadda Baku ee wadanka Azerbaijan kadib kulan la qaatay dhigiisa Azerbaijan, Lavrov wuxuu sheegay in Russia ay sii wadi doonto tallaabooyinka lagu dhammaystirayo in lagu taageero xabad joojinta gobolka ee Armenia iyo Azerbaijan. waxa uu si faahfaahsan uga hadlay horumarka ka socda deegaanka gobolka Nagorno-Karabakh isagoo oo tilmaamay in heshiiskii ay kala saxdeen hogaamiyaasha Azerbaijan iyo Armenia November 9 sanadkii hore ay wado u xaadhay wada hadal iyo mid nabadeed dalalka jaarka ah. heshiisyadu waxa ay bixinayaan dhammaan farsamooyinka laga maarmaanka u ah in la taageero joojinta dhammaan colaadaha, waxaana lagu talagalay in lagu xayiro gaadiidka iyo isku xidhnaanta kale. xaaladan ayaa caqabad ku ahayd marinka sare iyo awoodda dhaqaale ee gobolka ee muhiimka u ah sanado badan, ayuu yidhi Lavrov. dhinaciisa wasiirka arrimaha dibadda Azerbaijan ayaa cambaariyay dowladda Armenia oo uu sheegay in aanay weli ogolaan amaba dalkiisa la wadaagin khariirada miinada, isaga oo sheegay in 22 ka mid ah shacabka dalkiisu ay ku dhinteen walxaha qarxa oo lagu aasay dhulka intii ay socdeen dagaaladii u dhaxeeyay Azerbaijan iyo Armenia bartamihii sanadkii aan soo dhaafnay. waxaanu aragnaa isbedelka mid khatar ah oo aan si taxadir la u daawanayno. waxaan diyaar u nahay inaan rogno bogga hadda socda maadaama xaaladii shaqaaqadu hadda dhamaatay. waxaan ka hadli karnaa sidii loo hagaajin lahaa xiriirka Azerbaijan iyo Armenia. waxay qaadanaysaa tallaabooyin dhankaas ah, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda Azerbaijan. xiriirka wadamada Armenia iyo Azerbaijan oo hore uga wada tirsanaa midowgii Sofiyeetiga ayaa xiriirkooda u xumaatan iyo 1991 markaasi oo militariga Armenia ay qabsadeen gobolka Nagorno-Karabakh iyo sidoo oo kale gobolka kale ee loo yaqaan Abar Karabakh oo ah dhul caalami ah oo loo yaqaano inuu ka mid yahay Azerbaijan iyo 7 gobol oo ku dhow. iska horimaadadii dagaal ee ka dhex qarxay wadamada Azerbaijan iyo Armenia sanadkii hore ayaa waxa dowladda Ruushku ay qaadatay tallaabo ay ku dhexdhexaadinayso wadamada Azerbaijan iyo Armenia, taasi ugu dambeyn ku guuleysatay in la kala qaado ciidamadii halkaasi ku dagaalamay iyadoo guud ahaan goboladii la isku hayayna ay si toos ah gacantooda ugu galeen awood military wadanka Azerbaijan, markaasi oo ay taageero ka helayeen dowladda Turkiga iyo diyaaradaha aan duuliyaal lahayn ee wadankaasi uu farsameeyo.